maalinta caafimaadka dhimirka oo adduunka oo dhan laga xuso maanta oo kale oo taariikhdu ku aadan tahay bisha Oktoobar 10keeda waa maalin muhiim u ah dhammaan ummadaha adduunka maalinkani wuxuu muhiim u yahay in la xuso waa in caafimaadka dhimirka oo inta badan aan helin muhiimadda uu leeyahay diiraddan aan la saarin dhammaan adduunka dacladiisa in muhiimadda ay leedahay la siiyo oo la xuso la weyneeyo maanta oo bishu tahay 10 Oktoobar 2020 waxay nooga dhigan tahay maalinta loo dabaaldego caafimaadka dhimirka adduunka waa maalin aad iyo aad u weyn adduunka aad ayaa loo weyneeyaa si loo xuso ama loo xasuusto dadka qabo xanuunada dhimirka waxna looga qabto ama kor loogu qaado caafimaadka dhimirka iyo arrimaha la xiriira waa in aan takoorin dadka la nool caafimaadka dhimirka iyo xanuunada maskaxda waa dad bulshada ka mid ah waa sida xanuunada kala camal ay ugu dhacaan ka fikirka caafimaadka maskaxda iyo habdhaqanka bulshada waxay keenaysaa bulsho caafimaad qabto maanta oo kale adduunka oo dhan waxa lagu xusaa maalinta dhimirka adduunka waxay la dhigan tahay maalin aad u weyn waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay fahanto xanuunka dhimirka iyo daaweyntiisa waxaan leenahay dhammaan dhaqaatiirta kalkaaliyayaasha caretakers daryeelayaasha ama social workers dhammaantood waxaan leenahay hambaliyo maalinta caafimaadka dhimirka adduunka runtii waa priority iyada ah muhiimadda maanta sanadkan sanadkiisa kale waxaan ilaahay ka baryaynaa madaxweynayaasha prime ministerada inay ka soo qayb galaan